بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalayaal waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan maanta waa maalmihii waaweynaa oo Soomaaliya taariikhda ay sameynaysa ka mid ah markii labaad ayaa dad Soomaaliyeed waxay u dhaqaaqeen maanta doorasho qofyocada iyo inay cabiraan ra'yigooda iyo cidda ay u rabaan inay hoggaanka noqoto waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyeynaya guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan shacabka ku nool dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo aan leeyahay hambalyo taariikh cusub iyo bog cusub ayaad Soomaaliya u furteen 13 degmo oo ka mid ah dowlad goboleedkaas ayaa saaka dadku waxay u dhaqaaqeen inay codkooda dhiibtaan oo ay codkooda u dhiibtaan dowladaha hoose iyo kawnsalada degmooyinka iyo wakiilada dowlad goboleedka intaba waxaa ilaahay mahadi ah saacadda aan idinla hadlayo oo maalintii ay gabagaba joogto in wax dhibaataa iyo wax culays iyo wax incidente ama dhib oo dhacay aanay jirin dadkuna ilaa saakay ay safaf dhaadheer u taagan yihiin in ay codkooda dhiibtaan anay dhiibteen waa yeelo maxaan ku raadayay dad baahiyaha gaarkaa qabo dhallinyaro dhammaan in ay taagan yihiin oo ay codkoodii la baxayaan oo ay maxaan ku yidhahdaa muujinayaan cidda ay rabaan iyo mustaqbalkooda inay go'aamise ay rabaan waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed arrintaas waa misaal waa kudaysi mudan in la dabagalo sidaas ayaa dadka Soomaaliyeed dhabta waxa ay rabaan dadka Soomaaliyeed taasaa ka turjumayso ma ka turjumayso nin keligiis meel taagan oo asagu sidiis u taagan waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka soo shaqaysay tusaalaheedii waa ka inta kale dalkana inay sidaa u dhammaystirtaan rabno waxaan dadkeena u sheego dad badan oo aan anagu jeclaan lahayn inay ku soo baxaan codadka ayaa codadkii hore oo horudhac ahay oo la sameeyay ku soo bixi waaya haddana cod weyn doon waxaa soo bixi doono kuwana diidanay shalana eedeynayay na dacaayadeynayay ayaa cod dadka inta ka soo helaa soo bixi doono dimuqraadiyaddana waa intaas anaa hebelaa jecel iyo hebelaan jecelahay midna ma ahan waa ninka dadku ay danaynayaan ee fikirkiisa saxda ee siyaasiga dadka ka iibiyey kaas unbaa soo baxaya ee sooma baxayo midka maxaan ku yidhahdaa ee bannaanka ka qayliya ama meelaha maxaan ku yidhahdaa ka qaylo dhaami waxaan si buuxdo mar kale iyo mar kale u bogaadinayaa u hambalyaynayaa maxaan ku yidhahdaa dadka koonfur galbeed ee saakay u dhaqaaqa codbixinta waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa hay-adaha amniga ee hari iyo habeen u taagan in ajandahaas xorriyadda dimuqraadiyadda ah in ay ammaankiisa sugaan oo ay ilaaliyaan oo aan la carqaladaynin oo cadowga dowladnimada Soomaaliya cadowga shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan al-shabaabku in ay iyo kuwa dadka kalsooni ka waayay ee waxa inay carqaladeeyaan rababa hor taagan ciidamada amniga ah ee duurka iyo miyiga iyo baadiyaha maraya oo socda oo diidaya in la carqaladeeyo ayaan aad iyo aad u bogaadinaya ayagana waxaan leeyahay shaqadiinnii iyo waajibkii laydin igmaday ayaad si fiican oo wanaagsan aad u qabateen guulaysta waxaan leeyahay oo kale Soomaaliya jihadaasay aaday dadka Soomaaliyeedna waxaan u tilmaamaynaa waa jihadaas waa mustaqbalkooda dhallinyarada Soomaaliyeed ee 70% dadweynaha ka ah mustaqbalkiinu meeshaasuu jiraa ra'yigaaga inaad meel la tagto jiraa adiga inaad xor tahay oo waxa aad kula tahay inaad cabiratid jiraa adiga inaad xor tahay oo qofka aad doonto aad doorato adiga aan lagu doorin ayaa mustaqbalkaagu jiraa adiga inaad xor tahay oo aad isu soo sharaxi karto hal lay doorto anaa dadka maslaxad u haye aad dhihi karta ayore yaan lagu isticmaalin ee adiga ra'yigaaga iyo awooddaada iyo caqliga aad leedahay isticmaal dhallinyaroy waa halka fursaddeena mustaqbalka ay jirto waxaan rabaa inaan sidoo kale aan soo qaado magaalada Muqdisho waxaa looga dhawaaqay banaanbax maanta inuu dhacaa horta marka koowaad banaanbaxa maanta in lagu soo aadiyo ayadoo dalka meel ka mida doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysahay su'aalay leedahay maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka waa su'aalay leedahay waxaa iyadana su'aal meesha taagan ah oo in la fahmo u baahan
sababta maanta oo ay dowladda Soomaaliya ku baaqday shir hordhac ah oo wadaxaajooda in la isugu yimaado banaanbaxa loogu soo aadiya asagana niyad samaan kama muuqata meeshaas maalintii oo shir wadaxaajooda dowladda ku baaqdayna banaanbax lagu soo aadiyo maalintii doorasho ay ka dhacaysa dalka qaybo weyn oo kamid ah lagu soo aadiyo banaanbax niyad samaan loo soo abaabulay ma ahayn banaanbax Soomaaliya in lagu carqaladeeyo ay ahayd dowladduna intay fahamtay ayay ogolaatay in banaanbixi la qabto hase yeeshee nasiib darro dadka Soomaaliyeed ayaa ayaguna dhinacooda ka fahmay marka waxaan leenahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed niyad samaan aan la nimaado ujeeddo toosan aan la nimaado waxaa soo haray dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay mas'uul ka tahay ilaalinta iyo horumarinta dastuurka oo aniga aan ugu horeey dastuurka ayaa xaq u siinaya muwaadinka in uu ra'yigiisa cabiro uu soo baxo laakiin taas macnaheeda ma aha shacabka Soomaaliyeed oo walaalayaal fowdo qas ciidamo hub ma aha muwaadinku waa xor banaanbax inuu samaysto waa u xor dowladdu ma diidana dowladdu waxay ballan qaadaysaa amnigiisa inay sugto in aan la qashqashaadin inaan la waxayn laakiin waxaan rabnaa dadka aan ujeeddadu ay ka tahay kelmaddii saxda ahayd ee sida qaldan loo isticmaalaya mudaaharaadka uu ka yahayna inaan ka taxadirnaan u baahnayn waxaan leeyahay walaalayaal ra'yi siyaasadeed oo dadka laga gada la imaada xasaasiyaadka iyo caatifadaha dadka yaan la kicinin hadda 36 sano ka hor aan caatifada dadka kicinay dhibaatadii naga gaartay waan garanayna dadka ra'yi siyaasadeed oo mustaqbalkooda u tilmaamayo oo wanaagooda u tilmaamaya hala tusiyo ayaan la isticmaalin oo si qaldan loo isticmaalin intaas ma raba inaan ku sii dhaafo dadku waa xor waa mudaaharaadi karaan saacaday doonaan ay mudaaharaadi karaan meeshii la isla gartay ku mudaaharaadi karaan dowladdana amnigooda ayay ballan qaadaysaa inay ilaaliso hadday tahay cadowga nabaddiidka ah hadday tahay mid gudaha inuu carqaladeyn rabo dowladda Soomaaliya waxay boqolkiiba boqol ballan qaaday amniga siyaasiyiinta waa xor magaaladay xor u yihiin banaanbaxay xor u yihiin inay ka hadlaan oo dadka hor istaagaan ay ra'yigooda siyaasiga u sheegaan ayay xor u yihiin marna dowladdu kama soo horjeedo mana diidana laakiin yaanu noqonin banaanbaxa meel ay abeesooyinka iyo qaabdarooyinka dadka ay ugu soo dhexgabadaan ayayna naqanin banaanbaxa waxaa mamnuuc ka ah hub waxaa mamnuuc ka ah in lasoo hubeeyo oo dad hubaysan socdan la yiraahdo banaanbaxay qayb ka yihiin ama banaanbaxay ilaalinayaan banaanbaxa dowladda Soomaaliya ay ilaalinayso amniga caasimadda ka jira dowladda ilaahay ka sokow dowladda ka mas'uula dadka caasimadda ku nool dowladda ka mas'uula amnigooda banaanbaxooda iyo xuquuqdooda inay meel barsanaadaan dowladda ka mas'uula amniga banaanbax kasta oo la qabanayo dowladda ka mas'uula ayadaa ilaalinayso qof gaara ma ilaali karo maleeshiya laguma ilaali karo qoray aan sharciyeysnayn oo nin muwaadin uu la ordaayo la cararayo laguma ilaali karo dowladda iyo hay-adaheeda amniga ee magaaladan amniga ka dhigay ayaa ilaalinaya ayagoo difaacayo oo xurmaynayo xuquuqda muwaadinku uu u leeyahay inuu bannaan baxo yaan dadka la khaldin yaan dadka been loo sheegin yaan dadka jiha aanay wax ka jirin la aadinin walaalayaal dalka Soomaaliya dimuqraadiyad iyo xorriyad iyo amni iyo deganaansho u dhaqaaqa xaggiisa dowladdii intaas horseedaysay laguma eedayn karo inay amni darro iyo maxaa carqaladeyn wado laakiin dadweynaha Soomaaliyeedu xoraa tihiin banaanbaxaad xor u tihiin codkiina xor u tihiin inaad doorataan ciddii idin hogaaminaysaad xor u tihiin ajandaha dowladda ay leedahay kaas waay mid ka duwan ma aha yaan idinku qalluucinin aad iyo aad ayaan mar kale iyo mar kale aad u mahadsan tihiin waxaan idiin rajaynaynaa guul shacabka Soomaaliyeed guul mar kale iyo mar kale shacabka koonfur galbeed hogaankooda dhaqanka hogaankooda siyaasadda hogaanka amniga meeshaas ka jira iyo hay'adaha dowladda intaba waa bogaadinaynaa hambalyaan leenahay hambalyo Soomaaliya waddo cusub u furteen wad ku dhiirateen oo ku horkacdeen Soomaalina waddadaas fiican way idinku daba kacay haddii alla yiraahdo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh